waxaan bogaadinaa shirkan qiimaha badan oo ay soo abaabuleen Innovi iyo Arkan hormuudna ay bartnerka ka tahay sida wada ogtihiin hayaanka digitalka Soomaaliya meel adigu ka yimid. For those of non-Somali speakers, please allow me to address my speech as Somali language. Soomaaliya runtii keligeed kama shaqeydo private sector-ka keliya kama shaqeeyo digitalka. Waxaad dareemi kartaan in meel dheer ee laga keenay xalka ay ka imaatay digitalization-ka waddankeena. Waxaad wada ogtihiin Soomaaliya marka la fiiriyo waxaa la yiraahdaa adduunyada colaad iyo dhibaato unbaa dadka u sawiran. Laakiin markii dhinacaas laga yimaado waxaa jira picture ka duwan picture-da adduunyada ay naga haystaan oo ah inaan nahay dad wada tech people ah oo teknolojiyadda khatar ku ah, understanding-kooda uu sareeyo, sida aad wada ogtihiin ilaa Mareykankana looga qiray IQ-geen inuu aad u sareeyo. Marka midaasna shacabka Soomaaliyeed si guud waa ku amaanan yihiin. Soomaaliya uma ahan keliya luxury lifeline ay u tahay inay teknolojiga ay runtii kaashato ay ku shaqeyso. Hormuud runtii waxay kaalin hogaamineed ka qaadatay isbeddelka digitalka ee Soomaaliya. Hal simikaar oo hormuuda adoo wato wuxuu ku yahay bangi, wuxuu ku yahay simikaar ku hadasho, wuxuu ku yahay jeeb, wuxuu ku yahay xawaalad aad rabto inaad hadaa rabto dibadda lacag uga dirsataa ka dirsan karto. Marka infrastructure-ka shirkadda Hormuud through digitalka marka la kaalintii aan isleeyahay waa ay mudneed waa ay qaadatay. Dabcan SDG walba target gooni uu leeyahay. Haddii aan hal lahayd SDG 1 iyo 8 oo financial inclusion-ka iyo no poverty-ga iyo decent work economic growth-ka waxaa aasaas u ah Hormuud kaalinta ay ka qaadatay EVC Plus-ka oo aad wada ogtihiin qof walbo Soomaaliyeed maanta haddii oo banaanka u soo baxo inuusan keligiis la'aantiis dukaamaysan karinin oo ay fududeysay EVC-gu in qof walbo Soomaali ah meel kastuu joogo uu ku adeegan karo, ku ganacsan karo, wax walba oo noloshiisana uu ku maareysan karo. From beled to baadiyo, from Nicle to iPhone 17 waxaa wada ogtihiin qof walba kaalintiisa inuu ku qabsan karo meesha uu joogo. Nicle haddaa haysatay haddaa iPhone 17 haysataba EVC waa u sameeyaa. Marka waxaa isleeyahay EVC-gu waa transparent, waa cadaalad. Hormuud waxay kaalin xoog la ka qaadatay in Soomaaliya caalamka ay ku xiranto through internet. Waa wada ogtihiin qof walbo Soomaali ah min mi ilaa magaalo wuxuu haystaa internet xawaaro sare leh. Fiber optic internet meel walba yaallo oo dunida nagu xiro. Waxaa wada ogtihiin oo kale in Soomaaliya ay tahay Afrika waddanka ugu raqiisan ee internet lagu isticmaalo. Adduunyadana aan ka nahay kaalinta 7. Ganacsatada from small business to corporate waxaan u maleynayaa qof kasta wuxuu ku dugaameystaa adeega digitalka ah. Institutionska dowladda in lacagta digital laga dhigo oo cashka hand to hand-ka ah la yareeyo oo la digitalize gareeyo waxay yareedaa corruption-ka iyo musuqmaasuqa. Marka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha stateska maamul goboleedyadooda dabcan adeegyo badan oo aan waxaa jirta la qabano oo aan canshuuraha qaabka loo soo collect gareyn lahaa aan kala shaqeyno oo ay shirkadda ICT Tawaarag ICT Solutions ay shaqadaas la qabato dowladda oo baabuurka wadada maraya lacagta canshuurta oo ku bixinayo qaab digital ah, bajaajta ay ku bixinayso qaab digital ah oo uusan u baahnayn qofku inuu xafiis aado. Waxbarashada iyo caafimaadka Hormuud Salam Foundation oo shirkadda Hormuud iyo bangiga Salaam ay wada leeyihiin. Dabcan caafimaadka shaqo badan ay ka qabatay. Waxaa la dhihi karaa oo ugu horeedo arrinta early warning oo ah qofku markii waddanka markii musiiba ay soo diristo kale ama awareness loo baahdo in la sameeyo sida in talaalka carruurta kaleeto lagu dhiirigeliyo taleefanka loo saaro si waliba free ah.
waxaa kaloo jirto in COVID-19 kii oo kale aad wada ogtihiin in qof walba gacmaha inuu dhaqdo waajib ay ahayd oo qof walba wacyigelinta fariintaas ay taleefanka saarneed oo ay si bilaash ahayd ayada naftirkeeda. Dabcan internetka iyo infrastructureka adduunyada haddeertan Soomaaliya waxaa moodaa adduunyadu SDGskan iyo in lagu accelerate gareeyo teknolojiyadda waa ay sadgareeyeen, laakiin Soomaaliya waxaan u maleynayaa shaqadaas mar hore ay xilka iska saartay oo annagu mar horaan digitalka aadnay Soomaali haddaan nahay xilligaan digital aadna ma dhoweyn cabaaraa laga joogaa. Hadda adduunyada waa dareemi kartaan COVID-19 suu u dhacay inaad xafiis aaddo kuma qasbanid. Zoom aa wax walba ku qabsan kartaa, through WhatsApp aa ku shaqaysan kartaa, meel kastoo aad joogto waxaana fududeeyey internetka xawaarihiisu sarreeyay oo aan haysanay dalkeena. Ugu dambeyntii dabcan teknolojiyadda keligeed private sectorka waxba kama qaban karaan haddaanan la helin taageerada dowladda, private sectorka iyo hay'adaha horumarinta ka shaqeeya ee caalamka inay iska kaashadaan in goaliskaas through technology outcomekiisa lagu reach gareeyo. Dabcan Hormuud iyo affiliationskeeda ama sister companieskeeda oo dhan waxay diyaar u yihiin mar walba inay lead ka ahaadaan teknolojiyadda iyo hanaqaadkeeda